dowladda federaalka Itoobiya ayaa ciidamadeeda militariga keentay xuduudka Buuhoodle si ay uga hortagaan in kooxaha argagixisada ah ee dagaalka Laascaanood qaybta ka ahi dalkeeda u gudbaan. Ciidamada federaalka Itoobiya ayaa halkaa la geeyay kadib markii kuwa liyu booliiska ee kilika shanaad ee Itoobiya oo halkaa ku sugnaa ay ka qayb qaateen dagaalka isla markaana iyagoo haybaxaan ku socda ay dhinac saareen maleeshiyaadka ka amar qaadanaya garaadada Laascaanood ku shiray. waxaa la sheegay in dhammaan ciidamadii liyuga laga qaaday xuduudka Buuhoodle kadib markii ay dagaalka la galeen ciidamada Somaliland lagana dilay askar ka badan 20 lagana qabtay ilaa 17 kale. dowladda federaalka Itoobiya oo ka cadhootay sababta liyugu uga qayb galeen dagaalka Laascaanood ayaa markaa kadib gabiyahaanba xuduudka Buuhoodle soo dhoobtay ciidan militari ah halka liyugu dib loogu celiyay deegaanadii markii hore laga soo qaaday. warku waxa uu intaasi ku daraya in dowladda Itoobiya indhaha ku hayso dagaalka Laascaanood si dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ee colaadda Laascaanood qaybta ka ahi aanay uga tallaabin dhanka Itoobiya. warku waxa intaasi ku daraya in dowladda Itoobiya indhaha ku hayso dagaalka Laascaanood si dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ee colaadda Laascaanood qaybta ka ahi aanay ugu tallaabin dhanka Itoobiya. Itoobiya iyo Somaliland oo wadaaga xuduud dheer ayaa leh iskaashi dhinaca ammaanka ah